xaalada hadda aan ka hadli karo dareenkaygana ma qiyaasi karo isla xaaladaas waqtiga xaaladda qoyskan ayaa ah mid cakiran aabahood wuxuu ku dhintay israsaaseen ku dhex martay tarabuunka 2 askar bal fiiri askarta maalin walba dhexda xabadaha karida dadka shacabka dad ayaa agoon ku noqday dad ayaa noloshoodii mugdi gashay gabadhan yartaa hadda hortiina ka muuqata aabaheed tarabuunka iyo dukaan ku heysay halkaas ayuu ku dhintay maanta noloshoodii waxbarashadii wax alla wixii dhan mugdi ayay galeen waa kana hay'ad hooyadeed gabadh hooyadeed ayaan waxay tirnaa qoodkii iyo raashinkii la keeni jiray way weyn waa go'een oo maalin hal mar ayaa gurigeena mugdi noqday gabadheen waxbarasho ka go'day aabaheen oo gurida xaq darro ee saraasaaseen 2 askar edeb darro waxaa la yaab leh askartan ayada xabadaha isku dhuftaan bal fiiri oo isku dhow yihiin hal xabad isku dhufmayaan dadka shacabka kaliya ayaa baaba'ay halkaas waxaa ku dhimatay wiil saqiira gabadhan aabaheed mid kale gaari saaran mar walba way dhacdaa israasaasentan beenta oo xabadaha la isku ridayo askartaani ay dhexdooda isma dilaan dadka shacabka ay ku baaba'ay bal gabadhan waxay tiri aabaheen nolosheedii markaas ayaa u dambeysay maalintii dhintay mugdi ayaa galnay oo nolol xun ayaa galnay raashinka waa naga go'ay waxbarashadii lacagtii waa bixi waayay bal fiiri ayagana hal mar daqiiqado kaliya ayay nolosha ku bedeleen dadka iyo maalmo agoon ka dhigeen ee laayeen waa niman askara oo weliba sharciga askarin lama barin waa qeyr mas'uuliin isgooska tarabuunka ogtaa wax ka jaan badan ajirin ayay rasaas la dhaceen maanta gabadhan waa agoon aabaheed iftiinka adduunku ay hal mar waa ka wadeen maanta mugdi ayaa u daaran waxbarashadii cunadii qalbigii wax walba waa jabeen oo ibra ay noqdeen sida ay sheegay waxay tahay maanta nolol dambe ma haysan oo aabahe maanta waa naga dhintay si gardarro oo xaq darro ayaa loo dilay raggiina maxkamad ayaa la soo saaray wax lagu xukumay ilaa dil lama yaqaano laakiin arrinkan oo kale wuu soo laablaabtay waa arrin soo laabtay oo aad u laabtay aan waxba laga qabanin bal fiiri mar walba isgoosay wax arkaysa 2 askar xabad isku ridayso askarta waxay baahan in ciqaab iyo sharci la baro meel shacabka ganacsanaya oo la buuxo oo jaam in xabad la isku rido masana fiiri xabadaha ayaga isku dhufmayaan mar walba fiirso hadaa aragto 2 askar xabad isku ridayso xabadaha ayaga isku murtay dadka shacabka ay been ku dilaan waa dhowr toomar aan isgoosay Muqdisho aan baran noocaas waaye ee xabad isku riday tarabuunka horta ma ku jirto tarabuunka markii afaraad markii shanaad dad shacabka kaliya lagu leenayo oo ayaga hal xaba xataa dhaawac gaari maayo waana ogeyd dana ishaga siinaan waa ogeyd sidoo kale ayaa ka dhacay inay 2 askar xabadayaan dad shacabka kaliya ku baabeen nolosha Muqdisho wallahi way adagtaa aad u adagtaa oo maanta qofku dhaqaaqado hal mar ka dhinto waa qalaas noloshaadii adduunka wuu halkaas ku dhamaaday oo wax cadaalad ku filan habeertay ma jirto gabadhan iyo hooyadeed maanta murugada bulshada Soomaaliyeed ay la wadaageen xaalad ay ku sugan yihiin in gabadhii waxbarashada laga soo bixiyay oo lacag lagu bixi la waayay aabeeda ka bixi aabeena dhintay qudururii noloshii lucun jirna aaba bixi jir aabeena dhintay waa xaalada ugu xun ee qoys dham daga Muqdisho ee la kulmaan waa aad baa xun maanta askartaani israasaasena waxay ku wanaagsan tahay in lagu xukumo dil toogasha gabi ahaantood 4 falka geysatay bal fiiri ilaahan wajha kaamiro marka daawato xabadaha ay isku dhuftaa ee dadka masaakiinta kaliya ay dilaan oo waxa u jeeda in beesha filinta waa fil Hindiya xabadaha ay isku dhufmayaan dadka shacabka hareeraha maraayo ganacsanaa bis ku dilaan hadda gabadha abeed waa ganacsado ahay dukaana beesh ku lahaay madax ku dhufteen wiilal saqiir koob 10 waa dileen oo jir koob 10 jir aaba kale oo saaran gaari caasine biyar saaran asana barta ay ku dilaan bal fiiri 3 qofood ay dileen ayaga markii ayaga ma dilaan bal fiiri ma isdilaan ayaga waa nool yihiin dhaawac ma waa nool yihiin hal garaaf ku yeeleen dadka shacabkana way dhinteen dad agoon ka dhigeen dad ay noloshoodii iftiin u darnay ay mugdi galiyeen bal fiiri waa darada ka jirta Muqdisho wallahi xaq darada ka jirta Muqdisho wiligeena aan qabaar ayaga hal garaafo hatta idixda dhiig ma socdo bal fiiri 3 qofood halkaas madax ka jareen oo dad dham ay hooy oo nolol ahayn bal fiiri wiilka saqiirka hooya jaclad 2 qof ay dileen dad ay biilayeen arro ay korsanayeen oo maanta iftiin u oo maanta dad inta xoolo kala haysan subhanallah war muuqaalka meel gaarsiiyay dadkan qoyska ilaahay qalbiga u qawajiyo wixii caaw kan qoyskan ha caawiyo shaqare muuqaalka Muqdisho markaan xaalka kale ku soo laabto aad u waxma shaqare muuqaalka